guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay ku-xigeenka hantidhawrka guud ee qaranka kulankan oo warbaahintu dibadjoog ka hadaya markii kulankan soo idlaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda golaha wakiilada Soomaaliland iyo ku-xigeenka hantidhawrka guud ee qaranka runtii kulankan maanta aanu ku kulannay guddiga dhaqaalaha iyo hantidhawrka guud wuxuu daaranaa xeerkii dubahabeynta maamulka maaliyadda oo halkan gacanta ku hayo xeer runtii aad iyo aad ugu muhiima qaranka oo runtii muhiimad weyn ugu jooga ayaanu ka wada hadlaynay xeerka dubahabeynta maamulka maaliyadda xeerkaasaa qorshuu ahaa inaanu wax ka weydiinno qaybaha ka khuseeya hantidhawrka guud runtii su'aalo badan baanu wax ka weydiinay maadaama xeerku ku jiro mashruucan sharciga ku jiro waxa weeye qabyo qoraalkii guddida gacanta ay ku hayso horta way jirtaa dad aan u xidhnay way jirtaa dad aan shaqada ka joojinay way jirtaa marka aadan ogeynay way jirtaa oonaan soo bandhignay oo xataa wasaaradaha weli maanaan aragmaya way jiraan dowladaha hoosama wasaaradaha jira agaasimayaal baa jira aan qaar eedaynay laakiin anagu xogta marka waxaanu soo saarnaa marka maxkamad xukunto weeye garsoorkaan u gudbinaa qofku markuu maxkamad xukunto ayaa la odhan karaa waa dembiile inta hore waa eedaysanmaxkamadaha weydiiya waanu gudbinaa maxkamadaha taada weydiinaysa hadaa laga dhigo laakiin iminka kulankan aanu nimid dad wax iga weydiinaysaan ujeedka maanta taas way ka baxsantaan malay wixii waxa way kulankan aanu nimid waxa noo yeedhay guddiga dhaqaalaha waanu ka aqbalnay waanu nimid si fiican baan u arrimihiis kula eegnay waanu dhamaysanay si fiican waanu uga wada hadalnay waa Badr Maxamed Xuseen Badr wax telefishinka caalamka Somnews TV Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom